بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أمضى صوماليات وإذا وذا سلامي ميل والبقى أدونك دعالذي ساعة جوكتان سلام أدي أد أقيم بدن يا إذا وذا وأنا كم هالسنتين لصعد كأمر بقى أنا لسعتين أبقى أنا في ستين أدي أد يا هالسنتين ما أنت وحنا صوب وقتي ولا شيء دقيقة محمد أيانا صوب وقتي دقيقة وحكي ما ده وضن كإنجليزك maanta ayay u suurta gashay inay iskoolka soo booqato qaabka uu u shaqeeyo iyo meesha uu ku yaalo iyo sida waxbarashada iyo qaabka ay u socdaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa qadaray maanta inay soo booqato deeqa ayada ayaa idin la hadli doonta waa kanaha waana mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان umada Soomaaliyeed waxay idinku salaamayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan soo booqday mu'assasada al-Mustaqiin ma sha Allah tabaaraka Allah ay soo dhaweeyeen walaalahayga quruxda badan leh alxamdulillah ilaahay ayaa maanta haleeshiye oo aan ku imaado walaaladay kale oo maaragtay maamulka haayo iyo ilmaha agoonto la caawinayo ma sha Allah tabaaraka Allah galaasyada waa soo wada booqdo waxbarashada si fiican ay u socotaa ilaaha ma hadaas u sugnaatay waxaan ku gaarnay dadaalkiina amba garab istaagiina aan garab istaagteen welina waa u baahana inaan garab istaagtaan awlaadan waa awlaadiin waa kuwa mustaqbalka waa dadka inay bari wadanka ka taliyaan loo baahan yahay waa inaan ayaga soo dhisnaa beys ahaan aan u dhisnaa diiniyan laga dhisaa aqliyan laga dhisaa way iska dhib badan tahay wadanka dhibaatooyin badan oo soo maray laakiin alxamdulillah shukr rabbil caalamiin kuwa ka sheekeynay hadaanahay intii dhimatan Allah u naxariisto intii dhibaato ku soo gaartana Allah u fududeeyo hadan dhalinyarada yar yar ubax soo koraayo waxaan diyaar u nahay inaan wada caawino walaalahay idinka la'aantiin garbaha ku duuleyn waa idinka la'aantiinna waxa ma naqanayno alxamdulillah hadda wax way socdaan waxna in la riixay u baahan yihiin wuxuu u baahan yahay iskoolkaanayta ma sha Allah arday badan dhigato waxa dhigato dugsi hoose dugsi dhexe iyo dugsi sare intana waa soo booqday alxamdulillah wixii ilaahay keen waa lagu shukrinaa inta haysanaan ku shukrineynaa marka hore inta dambana ilaahay uu noo dhameystira idinkana garabaa idin karabnaa marka iskoolkan hadda wuxuu u baahan yahay oo isleeyahay yani hadii looga sii caawiyo sida meesha uu ku yaalo xoogaa inuu baliiska ku yaryaha oo maleysaa inaysan ayaga lahayna jirto oo meel ijaara ay tahay ay ka fiicnaa lahayd meel oo maaragtay mu'assasada ay leedahay oo ugu yaraan kiradaas marka laga baaqsado korontaa jirto biyaa jiro gaasaa jiro waxyaabo badan biilis oo soconaya jiro oo aan joogsan karin sida ardayda inay u baahan yihiin dhar school uniform buugaagta qalmaanta markii xataa meesha joogan biyo yar ay cabaanay u baahan yihiin meesha shaqaale nadaafad ay u baahan tahay in ardayda laga daba shaqeeyo u baahan tahay macallimiin qeyr Allah si xoogooda nagu kaalmeeyay waxa la siinaa wax ay istaahilaan aysan ahayn laakiin juhdiga ay gelinayaan inay adduunyo aakhiraba ku faa'iidaan ay tahay oo maaragtay waqti fiican geliyay walaalo qeyr badan meesha ku jiro anaga inaan qeyrkaas la wadaagno ayaan idinka codsanaa walaalahay magacaygu waa Deeqa Axmed Maxamed waxa ah qurba joog waxa reer UK marka insha Allah kun qeyr walaaladii hadalkana ma aqaan waa leega hadal qurxaya amba waa leega toosin ogyahay laakiin kulay wixii meesha yaal inaan ka hadlo inaan walaalaha qalbi fiican ugu imid oo aan soo booqdo arko waxa ay qabaan inaan la qaba u imaaday idinkana waxa idinka rajeynayaa xamar waa magaaladeeni waa nimaadna ina ugu yaraan xataa qofka waxay aragtay iyo wax lagu sheegay dhag waxay maqasho way kala gedisan yihiin ina soo booqatiin isgarab istaagno aadan u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Al-Mustaqiin Foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda buugaagtooda qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood 180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisii damaanad qaaday waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo waliba agoonta waa laga dardaarmay shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa